dadweynaha xaafadda horseed ee degmada Xamar Jajab ayaa saacado kadib weli ka argagaxsan si weyn u hadalhaya shakhsi ay ku sheegeen inuu cudurka juudaanka qabay oo abaar maqrinimadii shalay ay tilmaameen in uu wiil yar ka badbaaday isla markaana uu dhaawac dhinaca wajiga u geystay. waa meesha madaxa u galiyay halkaas waaye cunuga uu ku cunay waa meeshaas waaye marka gurigu ka soo baxay gurigu ka soo baxay dugsiga waa laga soo day gurigu ka soo baxay dheelu soo socday miya adeegna waa u dirsaday adeeg mooni ideenna keen markuu soo gudbay intuu cunuga intuu ku qabsaday halkaas uu ku cunay marka ma aragta adu ninka indhaha aniga ninka stationka markii la geenayo arkana keen intuu maan ku arkin nin xoog weyn miyo nin adiga iska dhacaatay oo adiga barjab yar waaye Layla Suulay waa hooyada dhashay Nuux Sheekh Nuur Nuux oo ah wiilka la sheegay in laga badbaadiyay nin ay dadweynaha xaafaddu ku sheegayaan inuu dad qal ahaa waxa ay tilmaamtay inay dhagta ka maqli jirtay juudaan balse ay iyadu indhaheeda ku aragtay halkaan uu ku dhagay dhagitaanka uu soo ugu dhagaayay wuu qeyliyay qeeladii uu qeylinaya gabar markii gurigan naga soo horjeedo degan aragtay marka waxba ma way u arkeen waxay tiri ilmo isdagaalayay u maleeynaysa iga celida marka waa soo istaagay markay soo istaagtay waxay tiri wariyaha ka kac cunuga ka kacday uu dhahayay waxa uu arkin dhagaxay ku dhufatay moona ka kicin dhagax kale ku dhufatay moona ka kicin dhagaxii saddexaad qorin wuxuu baalka fiilo uu ku hayay saan ugu ceejinay halkaasna uu ka goosto dhibka wiilkayga maanta heesta waa u jeediyay marka waa kaas inta nin waalan ahaa iyo inuu juudaan leh ahaa iyo maxad yani nin waalneen ma ahayn gabadha markay ka kicisay uu istaagay dhiigii uu dhuuqayay indhihiina banaanku ahaay uu dhahayay marka ninkaas nin waalan ma aha juudaan leedil sheegay waa maqli jireen hadda anay u dhacday Fartuun Xasan Ducaale waxa ay ka mid tahay hooyooyinka xaafadda horseed ee ay amuurtani ka dhacday waxa ay 5TV u sheegtay inay la soo diristay cabsi waalidiinta halkaasi degan oo ay u qabaan caruurtooda xaafadana waa Xamar Jajab shalay waxa ka dhacday mafaajaad oo la yaabnay cunug yar oo 8 jir ah ayaa waxa nagu cunay nin juudaan leey ah xilliga salaada maqribka la galayay cunugii ku kor fadhiistay wajigu ka goostay dhuunta calaamo ugu suubiyay ninkana waa nin juudaan leey ah nin waalan ma ah waa nin miirkiisa qabo xaafadana xalay mafaajaadaas ka dhacday dadkii goobjooga u ahaa dhacdadaasi ayaa gacanta ku dhigay ninka ay sheegeen inuu wax cuni rabay kadibna booliiska Xamar Jajab ku wareejiyay taliska saldhigga degmadaasi oo aan xafiiskiisa ku booqanay ayaa sheegay in ay CID-da ku wareejiyeen ninka baaritaan ka horna aysan wax tafaasiil bixin karin juudaan waa cudur jira oo dadka ku dhaca hase ahaatee dhakhtar Amiin Samakaal oo cudurada caruurta ku takhasusay waxa uu sheegayaa in dadka cudurkaasi qaba aysan waxba cunin Soomaalida juudaanka ee dhahdo waxa markii caafimaadka loo laabtay leprosy lahaa leprosy-na waa cudur kamid ah cudurada raaga ee ku dhaca maqaarka waxa sababta bacteria la yiraahdo germis oo magaceeda la yiraahdo mycobacterium nooc kamid ah sababta mycobacterium taas waana cudur ku dhaca jirka meelo kala duwan sida maqaarka wuxuu kale ku dhaca neef mareenka wuxuu ku dhaca sidoo kale neerfayaasha waliba wuxuu aad u jecel yahay kuwa adimada sida gacmaha iyo lugaha ma ahan calaamadiisa ma kamid ah qof inuu cuno arintan dhacday ee qofkan xalay la sheegana hadii sida loo sheegay oo jirto ma ahan laguma arintaas xiriir looma sameyn karo ama looma aaneyn karo qofkan cudurka juudaanka uu qabay ama leprosy uu qabay wax uu cun lama dhigi karo inay arimo kala jiraan waa laga yaabaa waana arin baaritaan u baahan meelo badan oo Soomaaliya kamid ah ayaa dhowr mar laga sheegay in lagu arkay dad qaba cudurka juudaanka balse inay dadka cunaan iyo in kale waa arin dood ay ka taagan tahay dhaqaatiirtuse ay sheegtay inaysan waxba cunin dadkaasi oo iyagu cudurka ay la nool yihiin iyo dadka ay ku dhex nool yihiin badibana u yihiin Maxamuud Soofeysana 5TV Muqdisho abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus